liibiya Soomaaliba kala bar bay qabtaan Soomaaliba kala bar bay qabtaan marka taadib aan inaba caadi ahayn ayaan kala kulan oo jilli oo xabsile oo habeen maalin lagu jiray wallahi meelaha macnaha lacagta la iskaga qaado habeen maalin oo lagu garaacayaa adoo lacag bixiyay ayaa naftana laga tiraya meedku saas isaga rasiisay horta wallahi treenkayga maanta laga ma sheekan karo waayo 2 sano iyo 4 bilood baan jeel ku jiray waayo madaxweynahayga aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa gaar ahaan anigu nin ka soo jeeda Soomaaliland baan ahay anigoo aan kala aqoon dal iyo dad ayaan ku kala bartay jeelka dal iyo dad maanta waxaan ogaaday inay Soomaaliland ay ahayn dal yar oo maamul goboleeda oo timaada Soomaaliya hoos timaada waayo hadii ayna hoos iman igama soo madaxweynahayga saana iga soo saaray meesha ina dadaalay waxaana jeclahay madaxweynahayga dhalinyaro badan oo meeshii iga hadhay in ay u dadaalaan oo ay meeshii ka soo saaraan alxamdulillah wallahi tamaam dareemo magacaygu waa Galad Cali Cabdullaah daago horeen ku bilaabo wallahi wadanka Liibiya in badan ku soo dhibaataysanayna xabsi iyo meel badan ayadoo aad lagu soo dadaalo madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha iyo dhammaan safiirka Soomaaliya Safir Ibrahim oo aad loogu soo dadaalo xabsiyadii naga soo saaray oo aad halkan uga mahadcelinayo wallahi Liibiya waa meel aad iyo aad u dhib badan waa meel dab inuu hadaad gasho saad uga baxday adag tahay qof walbaabana maanta dhalinyaradaas aad u jeedin oo tirada badan oo imaatay wallahi rafaadka 20,000 qofku ugu yaraa 15,000 laga soo qaaday xooshaashku waa meel aad u dhib badan wallahi waxa dareemi karaya maanta shucuurtiisa cabir karaya qofkii soo maray ma ahan meel wax lagu soo koobi karayo hal kelmad iyo laba kelmad ma ahan saaka waxa aragteen muwaadiniin Soomaaliyeed oo 100 ku dhawaada oo laga keenay dalka Liibiya kuwaas oo markoodii hore ka cararay xasilooni darrada iyo dibka ay ka cararayeen laakiin dib ka badan kala kulmay meeshay tageen waxaana u maleynaa inay yihiin khubaro tahriib hadda waraysataan ayaga khubaradii ah dawladda federaalka Soomaaliya sida ogtihiin waxay dadaal badan gelisay sidii maxaabiista meelo badan oo caalamka ka mid ah ku jira iyo dadka dhiban wadamo badan ku dhiban in wadankooda lagu soo celiyo hawshan hawl socotay waa qayb ka mid ah last sanooyinka la soo dhaafay Maryan iyo teamka wasaaradaha ka shaqeeya hawshan bishii la soo dhaafay madaxweynaheena wuxuu la kulmay markaan Turki joognay madaxweynahooda waxayna ku heshiiyeen inaan hawshaas dardar gelino hadda waa raci ugu horeeyay intii maaragtay covid ku dhacay dad badan oo saas meelo badan oo kala duwan ku xiranna waa la soo celinahay haddii Ilaahay idmo idinkana aad u mahadsantihiin soo dhaweyntiina laakiin waxaanan ku dhiirigelinaynaa dhalinyaradeenna inay wadankooda energy iyo xoog geliyaan siday uga qayb qaadan lahaayeen horumarka iyo shaqo abuurista annagana waxaana laga rabaa inaan ka shaqeyno xasiloonida iyo inaan uga dhigno wadan ay dhalinyaradiisu joogi karaan oo qayb ka qaadan karaan horumarka wadankooda wadankaaga meel ka mudan ma jirto